muddadii sanadka iyo xoogaaga ahaa ee aynu ciidankeennii sharafta iyo karaamada lahaa iyo hubkeennii 32 sannadood aynu haysanay lagaga yimi laascaanood oo ay maamul xumo u jabeen weli miyaad aragteen siday wax u dhaceen iyo hubkii laynaga qabsaday iyo ciidankeenna jabay cid ka hadlaysa miyaad aragteen ma isweydiisay sababta xukuumadda uga hadli kari weyday sababta xukuumadda uga hadli weyday waxay og yihiin hadday maanta soo daayaan maxaabiista ku xidhan laascaanood inay kashifayaan hadimadii iyo dhibkii ay u geysteen kuwii mas-uulka ka ah 6 bilood ee u dambeeyey dhammaan degmooyinka laasqoray dhahar baran xingalool yube 6 bilood ee u dambeeyey kabka way ka joojisay dadka waxaan rabaa maanta inaan qodobo yaroo kooban bulshada u iftiimiyo saynu ognahay xusbiga talada dalka haya ee kulmiye waxa uu isku darsaday tayaxumo iyo kala qaybin bulsho oo ay u dheer tahay indha adayg iyo been iyo brobaganda cad oo ay bulshada Soomaaliland dhageheeda ugu soo celceliyaan maalin walba ay warbaahinta la hadlaan weli miyaad aragteen qof inta uu gacanta midig isjaray isagoo gacantii midigu wax ku cuni lahaa go'an tahay haddana bulshada kula asaraartaba gacanteedu ma go'onee wixii ugu ridaan wax ku cunee kulmiye iyo xukuumadda muuse bixi ee uu garwadeenka ka yahay madaxweynaadkiisu dhammaaday qarankii Soomaaliland hadimo iyo dhib bay u geysteen wayna curiyaamiyeen waxayna jareen gacmihii midig ee qaranka Soomaaliland isagaana maanta ka dhigan in qaranku maanta curiyaamo wixii ay u geysteen barigii 2017 madaxweynaha maanta xilku ka dhamaanay Muuse Biixi iyo kooxdiisu waxay bulshada ugu ololeeyeen campaign kula galeen waxaanu nahay mujaahidiin dalkan u soo halgamay la jecel badan kale ka talinaya wanaagga iyo horumarka dadka Soomaaliland waxaan weydiinayaa maanta shacabka Soomaaliland is weydiinayaan waar mujaahidnimadii Muuse Biixi sheegayay iyo Maxamed Kaahin ma waxay ahayd inay bulshada hor keenaan dad ay ka mid yihiin xinif oo ah xinif oo sii barakacayaashii Soomaaliland oo xataa garan waayey tirada ay DB-yada mas'uulka ka yahay Soomaaliland ka jirta ma waxay ahaayeen buuni oo aynu garanayno xilliga uu Soomaaliland yimi iyo sifaha uu ka yimi iyo Soomaaliya in laga daba joogay ilaa ay hadda la doonayo inay bulshada hor keenaan ma waxay ahayd in dadkan iyo dalkan dhisnaa ee dhaqnaa ee madaxweynayaashii ka soo horeeyay Muuse Biixi midkeedba meel sii gaarsiiyay ay kala kaxeeyaan oo kala ururiyaan ma waxay ahayd in badhka kale israacisaan oo sii dulcad iyo darood aad dadka u rartaan oo uga haysaan ma waxay ahayd inaad ka been sheegtaan oo aad si cad u dafirtaan waxqabadkii iyo xukuumaddii ilaahay raalli ka noqdee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo aad tidhaahdaan 5 sano ee uu joogay madaxweyne Siilaanyo waxba ma qaban gabiyuu kaga tegey annagaa maanta wax qabannay ma waxa ugu abaal guddeen oo aad abaalkiisii uga dhigteen inaad tidhaahdaan Siilaanyo waxba ma qaban dalka iyo dadkaba gabiyuu kaga tegey war hadda bulshadu way aragtaa bulshadu way aragtaa waana idi eegaysaa wax suurtagalana maaha nin baa beri laba nin baa saaxiib ahaa labada nin mid baa waxay taataaban jiro gacantu dheeraado yara tuugaha dabeedna iyagiiba saxday markaasuu wuxuu yidhi
أنا كشيء ما يهبلوا عمل كاجو يكشيء كل مية عمل كيسي باشيء كل مية حكومة كل مية وما أنت مدحونا كي هاي مسبحي أفرت صدق البلاد وحدي عمل كيسي باشيء إنه ما يناشين سؤال لنا وقت هالكادكتين إن بدن كل مية وحكو سؤال عليها قرن ماذا يشرتاك سؤال الآن waxaan weydiinayaa qarannideeda iyo difaaca qaranka ee aad tirahdaan waddani kama qayb qaato ma waxaad u taqaanin inaad Somaliland soo laalaabteen oo keenteen ma waxaad u taqaanin in la idii guulwadeen waayey oo shacabka la idii tumi waayey ma waxaad u taqaanin inaad tirahdaan in la idii yiraahdo waar dalkii iyo dadkii iyo wadankii mid ka ah badh baad ka soo reebteen oo burcay yiru soo saarayeen boorta qarannimadu miyaan ahayn wada jirka wax wada lahaanshaha iyo jiritaanka Soomaaliland qarannimada maalin walba ku doodana fagaaraha loo imanaynaa horta taa aad lugta goyseen ee aad gacanta goyseen ee aad hadimooyinka ku rideen miyaan ahayn sidaan ognahay deegaanada gobolka Sanaag ee waliba gobolka Baran waa ay degaan dad yow tira badani xukuumaddu hore waxay u sheegtay si cad in xukuumadda uga baxaan ciidamadoodu ay reerahooda gurigooda difaacaan maanta 6 bilood ee u dambeeyay dhammaan degmooyinka Laas Qoray Dahar Baran Xingalool Yube 6 bilood ee u dambeeyay kabka way ka joojisay halkay uga baahnaayeen waa tii qarannimada markaa sheegayaan wax kaba way dhammaan qaataan degmooyinkaas ma jiraan waxaana ka goysay xukuumadda maanta taagan waa tii qarannimada ay maanta sheegayaan miyaan ahayn qarannimadu inay isku hayaan bari ilaa galbeed dadka Soomaaliland wada dega la yaabi maayo wali miyaa aragteen sheeke iyo shaahid muwaadin xaq iyo xuquuq dalkan ku leh oo ay qayd cashuurta uu bixiyo in isaga wax loogu qabto in xukuumaddu si cad ula wareegto oo waliba qoraal garyaqaanka guud soo saaro oo uu ku sheego in hantidiis lala wareego oo waliba kaaga darana sii raaciyo hantidaas maxkamadda degmada ku amro in hantida dawladdu la wareegto qarashka dacwadda ka baxay eedaysanaha muwaadinka hantida alena wax dacwad in la wareego hantidiisa jawaab celinayuu ka keen hadda eeg buu xukumay oo ku xukumay in hantida la wareego markaasuu u diiday inuu isdifaaco markaasuu wuxuu haddana u xukumay qarashka dacwadda ku baxay qarashka laga doonayaa ee dacwadda ku baxay horta waa kee soo diga u diiday muwaadinkii xaq u lahaa ee aad tiraan hantidiisa dawladdu ha la wareegto inuu isdifaaco waa maxay qarashka ku xukumaysaan xagayse ka dhacdaa xukuumad iyadoo isu xunta oo isu qabata oo isu jeedisa waa wax la yaabo weeyaan muwaadiniinta xaq u leh dalkan iyo dadkooda inay si sharaf leh ugu noolaadaan oo si sharaf leh uga ganacsadaan ay xukuumaddu soo wareegtaa xukuumaddu kulmiye maanta Soomaaliland halka iyadaa dhigtay waxayna geysay meel aan laga geeyin karin waxaan si rajaynaynaa oo ilaahay uga baryaynaa 5 bilood ka bacdi isu soo noqodkii iyo walaalayntii iyo wax wada lahaanshii Soomaaliland ay soo noqoto waxaan aad uga xumahay in difaaca qaranka iyo wada jirka shacabka reer Soomaaliland u booliyo u qabaan kulmiye ku taageero oo la ka dhigto cid baa ka soo horjeeda waar cid ka soo horjeeda oo aan idinka ahayn difaaca qaranka ma jirto idinka mas'uuliyaddeeda leh bulshada Soomaaliland waxaan u iftiiminayaa muddadii sanadka iyo xoogaaga ahaa ee aynu ciidankeennii sharafta iyo karaamada lahaa iyo
hubkeennii 22 sannadood aynu haysanay lagaga yimi laascaanood oo ay maamul xumo u jabeen oo aynu meydkeenna urursan kari weynay oo aynu hubkeenna urursan kari weynay weli miyaa aragteen xukuumadda somalilan oo ka hadlaysa maxaabiistii la xidhxidhay ee xabsiga ku jira saraakiisha sharafta mudan ee ahayd in la abaal mariyo xukuumadda somalilan oo ka hadlaysa weli miyaa aragteen weli miyaad aragteen siday wuxu dhaceen iyo hubkii laynaga qabsaday iyo ciidankeenna jabay cid ka hadlaysa miyaa aragteen ma isweydiisay sababta xukuumadda uga hadli kari weyday sababta xukuumadda uga hadli weyday waxay og yihiin hadday maanta soo daayaan maxaabiista ku xidhan laascaanood inay kashifayaan hadimadii iyo dhibkii ay u geysteen kuwii mas-uulka ka aha waxay diidayaan in saraakiishaasi xorriyad hesho oo ay wada hadal la galaan cidda gacanta ku haysa waa cadowgeen waa dad dulaan soo qaaday waa dad reer somalilan ahaayoo cadow tinimo la geliyey oo cadow somalilan u noqday maanta cadow bay gacanta ugu jiraan sababtay xukuumadda uga hadli weyday maxay tahay xukuumaddu waxay ka cabsi qabtaa inay bannaanka isugu yimaadaan oo ay kashifaan ciidanka qaranka sidii loo jebiyey iyo ciddii jebisay qarannimada somalilan ee maanta maxamedka aan ku celcelinayaa miyaanay ahayn tii uu shalay somalilan bartankeeda ku soo geliyey ciidamo calanka soomaaliya sita qaranka xaggu markaa ku difaacaysa dhibta iyo hadimada cidda geysatay wasiirka arrimaha gudaha weeye in lala xisaabtamo oo maxkamad la soo taago bay ku qurux badan tahay shalay dalkoo nabada dadkoo nabada waxaa somalilan halkaa dhigay waxaa loo haystaa wasiirka arrimaha gudaha iyo 5tii wasiir uu hogaaminaya laascaanood ku soo daayey ciidankii calanka soomaaliya sitay iyo odayaashii ay wateen waxaan hadalkayga kaga tegayaa in baa waxaa lagu yidhi war macasha yaa cunay macal cune soo bixi doone bulshaduna way idinla xisaabtami doontaa wixii aad dalkan iyo dadka u geysateenna waa la idinkala xisaabtami doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cadowgu reer sool maaha waa kuwii huwanta ahaayee walaal u soo dagaal tegay laascaanood inay fidma ka abuuranto ee maxamedkaahi soo daayay baa cadow ahaa waana kuwa maanta gacanta ku haya saraakiisheenna ciidanka qaranka sharaftiga